sidaa darteed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay istaciinuu biumuurikum alkitmaan war wixii ilaahay uu hibe idiin siiyey maalka oo keliya maahane wixii ilaahay hibe idiin siiyey qarsada lianna likulli nicmatin fa inna likulli nicmatin xasuudun nicmo kastoo ifka taalla cid unbaa ka yu-ato maxruuqaho xaasid ku ah marka nicmooyinkiina had iyo jeer asturta ayuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ruuxu had iyo jeer quruxdiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo inuu mar walba fagaarayaasha isla soo taago ma fiicna in badan waxa anigu aan arkay ilmo yar oo carruur ahoo intuu raqam waaxid ka galay iskuulka macallimiintii intay fagaaraha soo joojiyeen isla maalintaa wixii laga bilaabo aqoontii ay ka masaxantay ama dugsigiiba aadi kari waayo aqoontiiba la nacsiiyey anigu waxaan goobjooga ku yaroo aan dhalay ayaa 3 jir ayuu carruurta ku raacay madrasaduu aaday malcaamadda markaa isagu ma dhigta wuu dhegaystaa uun siduu isooga dhegaysanaya wuu 5 jis carruurtii akhriyaysa ka xifdiya dadkii baa yaa wax maasha allah yidhaah markii dambe ilmihii madrasadii waan ku kari waayey carruurta hadduu raacana intuu ka leexduu guddaafad fadhiisanayaa habeen keliya 5tii jisba maskaxdiisii ay ka dhiliid garoobeen habeen keliya ayay maskaxdiis ka dhiliid garoobeen marka bahashan ishu waa halis weeye waxaanan uga hadlayaa aqoonaan u leeyahay weeye oo in badan way soo martaa marka qofka muslimka ahi inuu maxaasintiisa qarsado madaaristan ilmaha xayeysiiska looga dhigayana in laga daayo madrasadii buu rabaa inuu xayeysiis u samaysto ardaygii ugu fahmada badnaa ayuu soo joojinayaa meel fagaare dabadeedna markuu ka degaba masrixii ilmihii maaha markii buu isbedelayaa marka goorta haddii ilmaha shahaado la siinayo oo ilmahaagu uu ku yidhaahdo aabbow wankan galay ha u ogolaanin inuu isagu fagaara istaagee adigu u soo qaad xataa wixii la siinayo adiga waalidka intaad tagto wixii jaa'isad la siinayo wixii hadiyad la siinayo adigu intaad ilaahay cuskatooda aayaadkaaga iska akhristo u soo qaad laakiin carruurtiinna fagaaraha ha keenina oo wixii ilaahay haybad siiyey yaan looga dhiginin xayeysiis iskuulkaasaa carruurta si fiican wax u bara si loo yidhaahdo darteed ba inta badan carruurta fagaaraha u keenaa hadhowna waxaan xasuustaa waqtigii siyaad barre sheekh cabdirashiid cali suufi baa wuxuu kaxeeyey inan 7 jir buu ahaa sheekh cali dheera awuu ahaa nin garanaya waxaa la geeyey sacuudiga sacuudigaa la geeyey 30 qur'aanka caalamka isagaa raqam waaxid qaatay caalamkao dhan 7 jir baa ilmahaas markii dambe ee meeshii laga soo celiyey madaxaba bura ka soo baxday ilmihii yaraa madaxay bura ka soo baxday caalamkao dhan baa tv-ga laga daawanayay raqam waaxid kuu noqday marka fa inna likulli nicmatin xasuudun nicmo kastaaba xaasid bay leedahay marka haddii ilaahay nicmo ku siiyo nicmat almaal ama nicmat alcilm ama nicmat alquwa waalnashaad ama nicmat alawlaad ama nicmat aljamaal hadduu ilaahay ku siiyo asturo lagulama qabo asturo haddii kale waxaanad hadhow mahadinaynin baa kaaga iman doona waana ta uu ina barayo nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maandhooyinow markaad meeshaa tagtaan idinkoo sunsumaya oo 11 nin oo dee geedkaa wada laaleeg aad tihiin albaab keliya ha ka gelina wadkhuluu waxaad ka gashaan min abwaabin mutafariqa albaabo kala duduwan ka gala waa sirta nolosha haddaanad qur'aanka kala soo bixi karaynin waxaa tahay kamahali alximaari yaxmilu asfaaran qur'aankani طib الnabowi iyo طib اlmaadi iyo طib الruuxaani intaba wuu isugu jiraa markaa nebiyullaahi yacquub ka barta casharkanuu ina barayo waa taxadar can ilcayn caynta inaad ka feejignaato markaan saa leeyahay mar walba de haddana yaanay cabsi mar walba ha cabsanine adigoo ilaahay isku xidhaya asbaabtii lagaga xijaabanaya isha la kaale waa adkaarta sabaax adkaarta masaaga iyo weysadaada iyo sadaqada waxa ugu fiican ee cudurkan lagu daweeyaa waxa weeyaan sadaqada iyo
صلاة لبدا الروح هدو إلى شذو ولا عين بان كرين ولا سحر بان كرين بري بوحى أنا ذكر الشيء ناقب وحى يتمي ناقب يتمي وحى يجشى كيسي naagta kale uga sheekaysay ninkeeda ayay doonaysay inay sixir maxabba ah u samaysato oo uu jeclaado sixir maxabba bay u samaysanaysay mid sixir roola ah ayay ma islaan sixir roolay ah ayay 4 jeer ku noqotay oo ay leedahay ilaa hadda wax isbedela ninkii kuma hayo markii dambe islaantii wareysatay waxay tidnaaheen bal ninkaaga iiga waran sidoo ku yahay weysada markaas waxay tiri hadii uu guriga ka baxayana weyso ku baxaa hadii uu seexanayana weyso ku seexdaa islaantii sixiroolayda waxay tiri ninka ha ku daalin waxba la heli mayno ninka ha ku daalin waxba ma qabadsiin karre waxa aniga ii yimi nin ay rag isqabteen oo ay sixir u xidheen oo ay qabadsiin kari waayeen maalin galab galbaha kamida ayuu meel tuula abu ka caraabayo gurigo meel yar fog ayuu u caraabay burca la igu keenay Yuroob markaan deganaa ninka deedna markuu salaadii maqrib tukaday ayuu ul yar leexday meelo uu kaajay oo iska biiyay oo dhaqaaqay mar allaaliya markay weysadii ka jabtay ayaa gantaal waxaynaan nabarba halka kaga dhacay aan muuqanayn ninkii wuu sooxay barqadii dambe ayaa dadkii wadada marayay ay soo heleen isagoo kooma ku jira la keenay markaan quraankii ku aqriyay ayay wax ka dhaxaleen jimankii la adeegsanayay yamaan sixiroolayaash marka waxay yiraahdeen intaasoo sanadood baan daba soconay oo aan jaanis ka weynay galab caynkaasa ayaanu halka ka helo markaasaan u galay hadhow markii ilaahay uu ka saaray wixii ayaan warsado waxaan ku yiri galabta caynka iyo caynkaas ahayd markaad carowday halkeed kaadida ugu leexatay halka markii aad kaadida u leexatay aad iska biisay wixii ka dambeeyay maxaad ka xasuusataa markaan kaadidii ka dulka ayaan iska biiyay baa war igu dambeysay bay goori baa war igu dambeysay qisa kale oo aniga laftayda ila kulantay nin baan 8 maalmood quraan ku aqriyay waana la sixray jinkii ku jiray ee camiilka uu ahaa sixir roolaha ayaa marka wuxuu ku hadlay carabka ninka 8 maalmood baa wada hadal noo socday qiso dheer bay noqonaysaa waqtiga inaga qaadaysa jinkii marka uu muslimay jinkii sixir rooluhu soo dirtay martini baa la oran jiray magaciisa magacaabaan ku yidho martini baa la yiraahdaa markaas casarkii dambe ayaan intaan suuliga galay aan soo istijeystay baan soo noqday anoo weysiisan waan ilaabay waa markuu muslimiinta ka bacdi markaasaan quraankii ku bilaabay wuxuu yidhi waryahay maxamed warorada soo weysiiso markaasaan ku yidhi warwaan weyse qabay maxaad u jeedaa war wallahi ma weyse qabtay door soo weysiiso hay markaasaan xasuustay inaan weyse qabin waan kacay markiiba waan soo weysiistay markaan soo noqday waan ku yidhi martiini oo maxaad ku garatay inaan weyse qabin waxaan ku gartay wili difaacaga jilicsanaa haddaan gaalkii ahaan lahaana waan ku dhaawici lahaa haddaan sideedii gaalnimadu u haysan lahaa wax alaali wax iga kaaxigay ma jirin difaacaga adkaa marka weysadu waa difaaca waxaana la yiraahdaa alwuduu silaaxul mu'min weysadu waa hubka mu'minka haddii aad dagaal ku jirto oo intaad hubka dhigato aad cadawga afka uga gasho maxay kugu samaynayaan way ku xidhxidhanayaan way ku garbaduubayaan marka alwuduu silaaxul mu'min waxaan tajribaynay weysada iyo jamaca salaada iyo sadaqada saddexdaa maado wax uga baawar weyn daaweynta xanuunada sixirka iyo isha iyo xasadka maanu arag weysada iyo salaad maxaan ku yiraahdaa sadaqada
iyo jamca salaada saddexdaa maado wax uga awood badan saddexdaa difaacooda maan arag anu intaan baabkaa ku dhex jiray maantana wuxuu nebiyullaahi yacquub ina barayaa inaan waxeenna iyo awoodda ilaahay ina siiyo dheeraadka aad haysatiyo mawhubada ilaahay ku siiyey inaanad ku goolaaftamin oo aanad bannaanka soo wada dhiganine aad isla gaabiso wixii ilaahay nicmo ku siiyey wuxuu ku yidhi markaa nebiyullaahi yacquub wadkhuluu ka gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala tagsan ka gala anigu haddaan yacquub ahay buu yidhi mamaa ugnii cankum idinkama kaafin karo xaggiinna min allaahi shay-an anigu ilaahay idinkama celin karo laakiin asbaabtaan la imanaya in ilxukmu xukumka uma sugnaanin ilaa lilaahi ilaahay baa guddoonka iska leh xukumka ilaahay baa iska leh wuxuu xukumana anu ma celin karo laakiin ka waalid ahaan iyo ka caalim ahaan ka nebi ahaan intaan ogahay inaan annagu asbaabta la nimaadnaa nala faray calayhi tawakaltu ilaahay baan isku halleeyey oon tala saartay wa calayhi ilaahay korkiisa uunna falyatawakkal ha tala saarto almutawakkiluuna ciddii wax tala saaranaysaa